Hello, bogsanayo waan banaanay dayacii waa kaa soo bilaanay bishare waa bilqayre wallo leeycidi taqaanay hadday dhankadu بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaan idinkaga soo sheekeeyey aan idin cashar ahaan u soo qaadateen ee aan idin ogeysiiyey aydan horeyna u ogeen inaad tahay asalkii aadanaha. waayahay ka soo tag marka waan weli wuu socdaa casharadii way socdaanoo ma aysan dhammaan. iminka manaahiijtan khaldan iyo waxa lagula damacsan yahay waxa weeyaan inaad xisaabtantid ee aada su-aalo isweydisid ee aad tidhaahdid waxaani maxaa sidaa loo sameeyey maxaa sidaa loo sameeyey maxaa ka dambeeya consequence macnaha maxaa consequence maxaa noqon kara maxaa ka imaan kara. waayahay iminka maxaa kula habboon taariikhdan qaldan ee lagu siiyey manaahiijta lagaaga dhigay iyo jugraafigan qaldan ee manaahiijta lagaaga dhigay. waa bariga africa markaynu nahay soomaaliya, jabuuti, dhulkan kelinka, gobolkan city, meel walba oromiyada ilaa waan soo sheegnay cafarta waa wada soomaali unbaa madaxa laga garaacaya. maxaa la diidan yahay boqortooyadii weyneed ee aada shalay ahayd inay soo laabata ayaa lagu diidan yahay. waka boqortooyada maxay ahayd maxay ku salaysneed midnimay ku salaysneed. ilaa dhulka mansaaridaa tagtay, ilaa waxaa tagtay afrikada dhexaa tagtay, ilaa waxaa tagtay morocc, waxaa tagtay saxaraha galbeed ayaa tagtay oo barbaris baa lagaaga yaqaanaa. ilaa dhulkan maxaa la yidhaahdaa saxaraha iyo magaciisa maali iyo dhulkaabaa tagtay aada degtay, jad iyo dhulkaabaa degtay. waxaa lagu yaqaanaa tawaarikh ay kuu bixiyeen war waa isla soomaaligii un, dankeli bay kuu bixiyeen war odacaligii shalay un baa tahay, oromo bay kuu bixiyeen war or-aamkii shalay un baa tahay. haddaba maxay tahay ujeedadoodu dadkan? maxaase taariikhda dhabtaa lagaaga qariyaa? abidkaa iskuulka ma lagugu dhigay? cali kala geeye taariikhdiisa ma lagaaga sheekeeyey? waa maya, lagaamana sheekeynayo. sababtoo waxaad ogaanaysaa geesi halyeey ah inuu maaragtay inaad tahay. waxaad ogaanaysaa inaa maaragtay geesiyaal badan oo sidaasi lamid oo aqoon leh inaad lahaan jirta ayaad ogaanaysaa. haye suldaan cali miraax ma lagaaga sheekeeyey? maya, lagaagama sheekeyno. suldaan weybis keliyaa lagu ekeysiiyey soo maha, laguma fahamsiinin waxa uu galo iyo waxa uu gudo aqoontiisa iyo ummadda sidoo iskugu waday laguma sheegayo. sababtoo ah waa lagaa qarin. waxaa la doonaya inaadan ogaanin oo waxay ayaga kugu shubaan aada qaadatid, manhaj ahaan aada u qaadatid. aakhirkana waa aniga idiinsii sheegay inay soo socoto inay sameeyaan etoobiyadii weyneed ee maaragtay daboolaan barigan africa. waa dowladdii weyneda etoobiya. marka ayaga ma wataan ogow, dowladda weyne etoobiya ay leeyihiin iyaga ma wataan ogow. rimuud bay ku socdaan ayaga. waxa weeyaan dibadda ayaa laga wadaa laftigooda. yaa wadaa? maraykan iyo ingiriis baa wadaa. maraykan iyo ingiriis toos uma soo faragastaan. imaaraad iyo sacuudi bay soo direen. sababta ma garanaysaa? waxaad leedahay adeer hanti fara badan baad leedahay. ma ahan ha eegin keliya shidaalkan keliya ha eegin, wax ka badan baad leedahay shidaalka oo kasii waaweyn. macdan baad leedahay. kama hadlaya anigu jabuuti iyo kelinka keliya maaha, waxaan ka hadlaya maca waqooyi galbeed markaad timaadid oo awbarqadla aad timaadid. taariikhdii dhabta ahayd meeshii taalla markaad timaadid waa hargeysa, markaad timaadid waa arabsiya, markaad tagtid waa gabiley, markaad tagtid boorame iska daaba asalkii baad tegaysaa. markaa boorame tagtid ilaa saylac boon markaad tagtidna lafihii ugu qadiinsanaa waa anigii idin kaga sheekeeyey ee laga helay halkaa laga helay ee nabiylaahi ciise ka hor dhowr kun oo sannadood ahaa. waa lafaha dunida ugu qadiinsan
meel kale aanan laga helin ma ogola, waa lagaa qariyaa, laguma sheego, waa lagaa indhowdaa. sababta lagaaga indhowdaa maxay tahay? waxaa lagu diidaya inaad isla weynaatid, inayna duleystaan unbay doonayaan, halkan ay naga duleystaan. iminka waxaa socda isticmaarkii maskaxda ayaa socda, baraarugu kac, aqoontii baa loo baahan yahay. cashirkan wuu dheer yahay, wuuna socon insha allah, waan socodsiin dhalinyaro baraaruga oo toosa oo kaca. aawe boqortooyooyinkii waaweynaa, barxow raage aawe, maxaa lagaaga sheekeyn waa barxow raage? waa lagaa qarin. sababta lagaaga qarinaya ma garanaysaa? waayo boqortooyo kasta markii la jibiyey, dadkii waxay bilaabeen waxa la yidhaahdo dacaayad, la yidhahdo saas buu ahaa, waa xumaa kan oo ahaa, kuntur ahaa, mandar eesh buu ahaa, jareer weyn u ahaa. jareer weyn wuu xukumi jiray dalka, iyaynaan diidin, aan ogolaano. taariikhda baa xusaysa, annaga maaha. wuu xukumi jiray, barxow raaga ayaa ka mid ahaa. maskaxdaas ka buuxiya, aqoontii baa la doonayaa inaad soo saartaan, aada ogaataan. laakiin waxa weye ogaanshihii baa lagu diiday. kow markaa kasoo tagno, dadka way riixaan inta badan. cunsuriyadda ma fiicna, ma wanaagsana, diinta ma qabto. annaga dad muslimiin baan nahay, islaam baynu nahay. waa inaan aqoonta diinta aan kordhinaa, si aan u ogaano wax badan, si aan u fahamno qaladaad badan oo innaga aynu leenahay, si aan u saxno, u hagaajino. waxaan ku hagaajin karnaa annagoo barana diinta siday ahayd u barana, oo asaaska kasoo bilaabna, safiin salaad kasoo bilaabna, 40 xadiis ku xijina, tafsiirka qur-aanka barano, ayaa ku gaari karnaa. alla yidhi, alla lahaa, qiila waqaala, maaha aqoon maaha. boqortooyooyinkan waaweyn ee dalka ka soo jiray, soomaaliya, jabuuti, dhulkan degaankan cafarta, oromada, waxaa lagu diidaya inaad ogaatid. culummo waaweyn baa soo martay dhulka, ee diinta maaragtay soo gaarsiisay, ee ku tahajuday, oo zaahid ahayd, oo maaragtay fidinaysa dugsiyaal, malcamado qur-aana furay, ee furay maxaa la yidhahdaa, masaajidada ka akrin jiray, tafsiir ka akrin jiray. sheekh yuusuf alkowneyna kamid a. marka awbarqadla taga la leeyahay, keliya meeshii aqoontii diinta ayay ahayd. kow aqoontii diinta maxaa ka horeeyey? boqortooyadii asalka ayay ahayd, ee soomaaliya laga maamuli jiray ayay ahayd. maxay ahayd? maxaa kasii shisheeyey? bal eeg qubuuraha ku yaalla arag, bal eeg, war archaeologist baan u baahannahay, anthropologist baan u baahannahay, dhalinyaro toosoo baraaruga, oo geologist baan u baahannahay, oo toosoo kaca oo baraaruga. dhalinyaro aqoontii baa la doonayaa. iminkana oo adiga arkaya in ciidamo badeed lagu samaystay. maxaad sugaysaa? maxaa dhimana sugtaan? marka dhirbaaxa miyaa rabtaan? hees bay ahayd. maxaa dhimana sugtaan? dhirbaaxa ayaa rabtaan. marka usha ilaa dusheena ay ka timaada maan sugayna. war kaco baraarugo, aqoontii la soo baxa, oo waxaan a ku baajin lahaydeen, oo maaragtay waxay wanaagsanaa aad ku soo bandhigi lahaydeen. ha laisku yimaado dhalinyaro, ha la wada hadlo, aqoontii ha laysku keeno. aqoonta markaas bay xoog leedahay, ee awood leedahay. aqoonta awood ka saraysa ma jirto. siyaasaddu awood maaha, awoodduna maaha siyaasad. awoodda dhabta ah waa aqoonta. halkaasaan ku joojinayna casarkeena. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.